qaar ka mid waxgaradkii ismada Puntland oo shijiraad ku qabtay magaalada Boosaaso ee xarunta gobolka Bari ayaa ka hadlay xaaladda haatan ka taagan magaalada Boosaaso kadib xilka qaadis lagu sameeyay agaasimihii ciidamada BSF-ta taasi oo ay BSF-ta ka soo horjeesatay qaar ka mid ismada ugu horeeyay Boqor Burhaan Boqor Muuse ayaa ku baaqay in xaaladda la dejiyo isla markaasina wax kasto taagan wada hadal lagu dhameeyo ilaaha noo fududeeyay kulankan inaanu isu nimaano intan oo ismadii magaaladan Boosaaso joogay intii sali ka dhig runaantiina fakarka iyo intay soo jeediyaan ismadu ayaan la qabaa hadalka iyaga dhameeyay runtii waqtiga inuu ku jirno iyo Puntland intay hadda soo dhisnayd waxay ku noqonaysaa madmadow haddii waxyaalahan oo kaleeto ay dhacaan waxaana ka sii liidata haddii wax laga qaban kari waayo waxaan rajaynaynaa ilaahay idankiis insha Allah bismillaahi kariim hawshaanu sida ay simadu u sheegeen inay si khayr ku dhamaato darafyada ay quseeyaan siday Puntland ku soo caalamay jidhay waxay ahayd in wax walba oo jira laga wada hadlo khilaafka hadduu yar yahayna Soomaalidu waxay tiraahdaa waa la baabi'iyaa hadduu badan yahayna waa la yareeyaa runtii annaga kelmadayadu ismadu maraaxil badan bay soo mareen marba heer bay soo mareen ilaa dhisidii Puntland la dhisay hadda ragga halkan fadhiya Beeldaaje Cali waan u malaynayaa asaasayaashii ka mid ahaa ilaa yoomana hada mar walba way u taagnaayeen wixii wax qabadkeeda wax ka qaadashada iyo dhageysigu waa meeshiisa iyo in la isugu dhaganugulaado laakiin kelmadooda iyo inay wixii markaa munaasaba ka yiraahdaan waa waajib saaran guud ahaan ummadda Soomaaliyeedna waan soo jeedinayaa hoggaanka dhaqanku inuu yahay astaanta kaliya ee ummadda Soomaaliyeed muddo badan ay ku soo caanameelaysa gaar ahaan goboladan waxay ahaayeen runtii lafdhabar mar walba u taagan wanaagga iyo islaaxinta iyo khayrka annagoo ah ismadii dhaqanka ay Puntland ama Soomaaliya noogu horeeyo boqorka beelaha daarood Boqor Burhaan Boqor Muuse oo aanu ku qabanayno guriga boqorka shir jaraa'id oo micnihiisu yahay nabadda iyo xasiloonida inaanu adkeenno aanu heesanno shirkaas oo ah sida Beeldaajo uu sheegay ciidan ka soo gudooday oo ka mid ah ciidamada Puntland oo xaaladdaanu hadda taagan tahay waxaanu baaq u direynaa dhammaan ugu horeeyo madaxweynaha dowladda Puntland Dr. Saciid Cabdullaahi Dani qeybaha kala duwan ee dowladda ugu horeeyo wasiirka amniga in allaale intii ka shaqeysa amniga waxaanu baaq ugu direynaa arrintan yar oo taagan inaan u dhameyno una dhameysaan si saluuxa oo hoos ah inaan u dhameyno magaalada Boosaaso waa halbooliyihii Soomaaliya ama khaasatan Puntland oo ah xaruntii ganacsiga ee Puntland annagu marna ma yeeleyno mana ogolaanayno in magaalada Boosaaso ama guud ahaanba Soomaaliya ama Puntland amni darro laga abuuro ma yeeleyno haddaan nahay dhaqankii arrintaas ayaana maanta meeshaan isugu nimi waa la sheegay kulanka saaka iyo ujeedadiisa waana isku mid kelmadaha aanu halkan ka leenahay waxaan leenahay marka baaqayagu wuxuu yahay marka koowaad in la ilaaliyo nabadgelyada oo igu horeeyaan hay'adaha u xilsaaran oo ah ciidamada dawladda Puntland dhammaantood cid kasta oo odayaasha iyo shacabka iyo ganacsatada dhammaan in laga qayb qaato horta adkeynta amniga
iyo ilaalinta xasiloonida iyo lagana fogaado wax allaale wixii keenaya xajiin ama xasaasiyad ama inay arrimahan hadda taagan uga sii daraan. arrinta labaad waxaan rabaa inaan idhaahdo dowladnimada iyo midnimada in la adkayo. Puntland waa dowlad dhowr iyo 20 sano jirtay, waxaa lagu soo caalamaalay wada ilaalinta isla fahanka, haddii khilaaf yimaado in hoos loo xalliyo. marka siday ahaan jirtay waxaan rabnaa inay ku socoto midnimada iyo dowladnimada iyo wadajirka iyo karaamada in la ilaaliyo. waxaa lagu ilaalin karaa cid allaale cid kasta meesha ay ku habboon tahay iyo xilka ay ummadda u hayso inay ugu guddo sida ugu wanaagsan oo midnimada iyo dowladnimada iyo xasiloonidu ay ku jirto. maxamed laki maraasan TV kalkaayo.